haddaba barnaamijkeena waxaynu ku bilaabaynaa arrimo aada cajiib u ah warar culus oo la isdhaafsaday saakay madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa sheegay inuu doonayo inuu qaato uraniumka Iran maxaa horta nuclear ee samaysanay anaaba qaniimeysana inuu qaadana wuxuu sidoo kale sheegay shidaalka Iran inuu la wareegi doono oo asagu qaadan doono sheekaasu halkaas ayuu marsiinaya haddaba markaan idin tuso wararkii ugu dambeeyay Trump wuxuu sheegay inuu ku hanjabay inuu la wareegi doono uraniumka Iran iyo sidoo kale shidaalka Iran inuu la wareegi doono haddaba madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa waxaa la sheegay inuu hanjabaadihiisii sii kordhiyay ku saabsan Tehran waxa uu sheegay in dhinaca militariga ay doonayaan ciidamo inay geliyaan oo ay weeraraan makhaasiinada uraniumka lagu kaydiyo iyo warshadaha shidaalka iyo meelaha shidaalka in markaa ay ciidamadaasi uu gelin doono ay halkaa la wareegi doonaan ninkan marka dhowr hadal oo kala duwan oo ku hadli jiray laakiin hadda wixiisu waa cadiyay ujeedadayda markan waxa uu leeyahay inaan shidaalka Iran qaato kow iyo uraniumkii nuclearka ay ka dhigan lahaayeenba inaan soo qaato waxa hadii la iska soo qaadanayo alaab meel taalabiya hawl culus ka horeysa wuxuu sidoo kale sheegay in ciidan military ah ay qorsheynayaan waa sida la sheegay ciidamo cirka laga soo daadin doono inay jasiiradaha ku degi doonaan waxa shaqeeyay marka arintaan wuxuu yiri waa ka shaqeynayna dhanka kale isla asagiya wuxuu leeyahay 15 qodob ee aan soo gudbinay qaybo badan oo kamid ah Iran way ogolaatay isla asagii dhanka nabadda uu ka sheekeynaya dhankana dhulkaaga qaadanaya iyo waxa haysato kule marka odagiisa si uu yara wareysay laakiin markan Iraaniyiintu way fahmeen jawaabta ay siinayaan waa jawaabtiisoo kale hadallada uu ku hadlo mid maartay jawaab ciyaal suuqeeda leeyahay hadal ciyaal suuqeeda ku hadla isagoo bogtay isagana waxa la siinayaa jawaab ciyaal suuqeed saqajaanin jawaabta saqajaannimada la siinayaa isaga oo hadalkiisa u dhigata lula haddaba marka aan tuso jawaab la yaab leh oo marka ay sameeyeen Iraaniyiin haddaba wakaalada wararka Turkiga Anadolu waxay leedahay mas'uul sare oo Iran ka tirsan wuxuu yiri ciidamada Maraykanka waxay noqon doonaan cuntada libaax badeedka badda khaliijka ku jira طعام ay u noqon doonaan libaaxyada badda noogu jira khaliijka waaba gaajeysan yihiin libaaxyada badda ku jira gaajeysan askartan feeraha waaweyn ee soo daadinayso oo doofaarka ka dhargay oo bararsan waaba cuntadii aan siin lahayn waayo libaax badeedyada waaba naga soo daahaysan libaax badeedyada iyo cabaadaya gaajo darteed marka nimankan soo daadiyo askartan leedahay waxay qaadanayaan uraniumka iyo shidaalka Iran ay qabsanayaan waxay qabsan karaan ma leh bal cunto aan uga dhignay libaax badeedka noo keen dacaam uga dhigayna dacaam marka dad wax faraqeynay waxay yiraahdeen hadaladii diblomaasiyadda waa la iskala baxay waxa la maraydeen hadalla ciyaal suuqeed si saqajaanimo loo wada hadlayo waxa la yiraahdo weyn asaga saqajaan oo kala noqday wuxuu rabo iska sheegaya marka iyagiina Iraaniyiintu marka hadda waxay bilaabeen sidiisoo kale hadal ciyaal suuqnimo oo saqajaanimo haduu soo tuuro mid isaga la mid ama ka xoog badan ku tuureynaa marka ninkan askar aan gelina waxba qaadan waxaan u xiraadeen libaaxi badda khaliijka libaax badeedki waaba gaajiseen libaax badeedka halka ugu jira gaajays oo ka feeraha waaweyn oo doofaar ka dhargay meesha ku soo daadi cuntaaba uga dhigilaan dacaam ay ugu waaleen kula sabakatul qarshiga libaax badeedka badda ku jira waxay ugu waaleen kula dacaam waa gaajoodeen meesha marka waxa way xaaladda halkaas ay baraysaa waayay qodobka kale ee barnaamijkan ku soo qaadanayno waxa leeyahay nimanka Israa'iiliyiinta waxay joogaan qaatib billahi joogaan xaaladdu meeshii ugu xumeeday barayaan meel walba joogta lagu hayaa shalay waxa la idinku yeeray
baarlamaankooda shiray markii la yiri meel lagu shiro ma jirtaa ku yiri Iiraan adul taarso idin badhi hadda waxa la soo warinayaa nin wasiirana inuu ka badbaaday dil baarlamaankiina intay isu yimaadeen godad dhulka hoostiisa ay ku carareen markii gantaal Iiraan leedahay uu soo salaamay magaalada Qudus meel ay si dhuumasha ugu shirayeen xaruntooda xataa waqtiga telefoonada alla soo dirwaalay mid markaas Iiraan inay ogtaa booda marka waxa ka dhacay meesha saareed tuso hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa leeyahay waxa badbaaday wasiir Israa'iili ah weerar ay soo qaadeen dhanka Xisbullah dhanka kale xubno ka tirsan kiniisadka ayaa iyaguna godadka u kala cararay kadib markii uu ku habsaday meeshii ay ku shirayeen meel ku dhow saaruuq Iiraan ay ku soo riday magaalada Qudus godadkii la isugu tagay waa la iswareystay sidee u shiri karnaa dawladnimadu sidee ku shaqaynaysaa dawladnimo ma la arkaa Iiraan hal mar yaa meel ay joogaan isha ii saareeba taagad godadka dhulka hoostiisa ku shirade meesha ku aruurale marka xaalku halkaas waa asaguna baraya dhanka kale wararka Israa'iil waxay leedahay waxay ka shaqaynaysaa hadda saldhigyada Mareykanka ee gobolka ku leeyahay qaar badan oo kamid ah in inta la soo raro Israa'iil la keeno macna Israa'iil ka shaqaynaysa saldhigyadaas in la keeno sababtoo ah gabaad inay ka dhigtaan Mareykanka saldhigyadiisa asaga difaacaysa maxuu difaaci karaa عربتان باش جوكتو لغاية بالكستا صدقيديسا سوما باش كان برامجكا حالي كان لديارادا لغو قبي صدقا أمير سلطان السعودية سو يا إسكالي مركا إسرائيليتي واقع في فين لفتركو الله وريرين مريكن كي هانوي ماذا ماشان سودك انت سودك سعودية كسوقور كويت كسوقور أنك نلا سودك انت سوحي سليهن مريكن كا وحو كيسرا قنتالا فربضان يا رساستا قنتالا وحا كني وحباؤون أدلي سيدي كعلنا markay ku gabadaan ee rabaa gadaalkiisa galaan hadaba markaan idin tuso warbixin yara cajiiba oo arika laga qoray warbaahintu waxay sheegayaan saaka Israa'iil waxay daraasad ku haysaa in saldhigyada Mareykanka oo cusub in laga sameeyo dhulkeeda sababo la xiriira xaaladaha dagaalka oo isbeddelaya oo xaaladdu ay ku xun tahay arinkan waxa laga soo xigtay warbaahinta Ibriga ama Israa'iil oo daboolka ka qaaday Israa'iil inay arinka ka shaqeynayso balse wali aan go'aamo cad dhanka Mareykanka ka soo baxeen awjeeda marka nimankaanu meeshay ku carari lahaayeen iyo adii ay ku gabalahaayeen ay raadinayaan marka xaajadu halkaas ay joogtaa qodobka kale ee muhiimka ah wararka soo kordhay saaki waxa ka mid ah xuutiyiinta oo weerar kale qaaday xalay meelo kala duwan oo Israa'iil ah ayay ku weerareen diyaarado droonisa hadaba wararkii ugu dambeeyay arrinka laga qoray hadaan idin la wadaago weerar ka yimid dhanka Yemen ayaa lagu bartilmaameedsaday magaalada la yiraahdo Eilat hadaba dhanka kale cambaarayn ayaa loo jeedinayaa xuutiyiinta maadaama dagaalka ay galeen sida la leeyahay hadaba warbaahinta Israa'iil ayaa xaqiijisay deegaanka Eilat ee ku yaala koonfurta Israa'iil in weerar uu kaga yimid dhanka Yemen waxaana dhanka kale la sheegayaa qaramada midoobay inay markaa cambaaraynayso xuutiga sababta uu dagaalka u galay oo waxay leedahay dagaalka inaa gasho ma fiicna waa cambaaraynayna hadaba dhanka kale waxa la sheegayaa inay isticmaaleen diyaarado droonisa oo Yemen laga soo riday oo markaa la sheegay saacad ku dhawaad in lala dagaalamayay Siiriya digniintana uu meel kasta isqabsaday iyadoo diyaaraduhu aan la garan karin sida ay ku soo gudbeen iyagoo dul taagan ayaa la arkay magaalada hadaba kanaalka la yiraahdo 12 ee Israa'iiliyiintu ay leeyihiin ayaa wuxuu xaqiijiyay isaguna weeraro dhinaca droonka iyo sawaariiq labadaba in markaa lala dagaalamay oo markaa iska caabin daran lagu sameeyay way hadaba qaybtan ugu dambeysay barnaamijka waxaanu ku soo qaadanaynaa war goordhow soo dhacay oo sheegaya weeraro cusub oo Iiraan ay qaaday inay hadda ka socdaan Israa'iil hadaba aan idin tuso wararkii ugu dambeeyay telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay Siiriga digniinta ayaa laga maqlayaa meelo kala duwan oo ku yaala koonfurta Israa'iil wasaaradda arrimaha gudaha Israa'iil ayaa la sheegay inay markaasi dadka uga digtay dadka jooga deegaanada Naqab iyo Dimona iyo Arad oo markaa
iyagoo looga digayo sawaariikh ka soo socota dhanka iiraan. waa markii saddexaad saacad gudaheed iiraaniyiintu ay weerar gantaalaha ku qaadaan gudaha israa'iil. saacad gudaheed ayaa 3 mar la weeraraya. warnooku gantaala badan ay dheen kuwii aan ku difaacaynaaba qaati bilaa ka joognaa oo dhammaadeen. marka nimanka waa iska soo wadaan beeqa sare baasha samaynayeen gantaalaha. marka waa iska soo wadaan saacad gudaheed 3 jeer oo weeraro kala duwana ka waran. miyay saalan tahay maanta oo dhan siiri la yeerinayo yaa shaqaysanaya dhaqaalihii hoosoo u dhacay waa la yaaban yahay dadkii cabsiyaa dishay ninaan dhiikar qabi jiray dhiikaraa ku dhacay meeshaasu marka inkaar culusaa ka jirta. haddaba barnaamijkaygii saaki waa naga intaa